يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا ابني إياس أتيت نجما لامعا بل كبروا طارق النبي نوح عليه السلام. نبي نوح عليه السلام مجيسو على به جري نوح ابن لامك وحكو أفتر صدا شيث ابن آدم عليه السلام. نبي نوح نبي آدم وحاول حيسي مدو 10 قرن ونقنيسه 10 سنوات. نبي نوح عليه السلام ورسولك أجهري والله سبحانه وتعالى أدره قوم. نبي نوح عليه السلام وحلا دري قومك أجهري ولي ماذا شركي وأصنام عابدان. نبي نوح عليه السلام قومك سوف أجيري الله سبحانه وتعالى كل سنة عابدان أي وحبل وذاجنين. نبي الله نوح عليه السلام qoomkiisa si hoos ula hadli jiray, si public ayuu la hadli jiray, habeenkii ayuu la hadli jiray, maalintii ayuu la hadli jiray. marnaba muu ka cajisin inuu ugu yeero jidka toosan ilaa ay ka soo wareegtay 950 sano. nabi nuux alayhi salaam muddada 950 sanadood waxaa kaliya rumaysay 80 qof. allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u waxyooday nabi nuux alayhi salaam inaysan rumayn doonin 80 qof soo raaca. kadib nabi nuux alayhi salaam wuxuu allah subhanahu wa ta'ala ka baryay inuu halaago qoomkiisa. nabi nuux alayhi salaam waxa la amray inuu doon aad u weyn u sameeyo taasoo ka koobneed 3 dabaq. nabi nuux alayhi salaam tilaabada ugu horeysa uu qaaday waxay ahayd inuu abuuro geedkii uu ka sameyn lahaa doontaasi. waxa la yiraahdaa doontaasi hagaajiskeeda waxay ku qaadatay wax ka badan 200 oo sano. dhererkeedu wuxuu ahaa 1 dhudhun, ballaceeduna wuxuu ahaa 100 dhudhun. nabi nuux alayhi salaam waxa la amray nolol walba lab iyo didig inuu saaro doontaasi markuu allah subhanahu wa ta'ala uu ka soo siidayo dhulka biyaha cirkana uu ka soo siidayo biyaha ay ku badbaadaan doontaasi. qaybta hoose waxa lahaayeen xayawaanaadka, qaybta dhexena waxa lahaayeen bini'aadamka, qaybta korna waxa lahaayeen shimbiraha. qoyska nabi nuux alayhi salaam waxa kaliya rumaysay 3 wiil ee Ham, Sam iyo Yafith. wiilkiisa afraad ee Kancaan iyo xaaskiisa way iska diideen inay soo raacaan doontii nabi nuux alayhi salaam waxayna raaceen gaaladii oo ina la halaagsameen. allah subhanahu wa ta'ala wuxuu amray dhulka wixii biyaha ku jira dhan inuu soo siidaayo, cirkana wixii biyo ku jira inuu soo siidaayo. waxa isqabsaday adduunyada oo idil biyo. qoomkii nabi nuux way halaagsameen kadib markay dhinteen roobkaas iyo biyahaasi waxay socdeen la yiri 40 cisho. riwaayada qaarna waxay leeyihiin 6 bilood ayay socdeen. kadib allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhulka amray inuu biyihiisa laqo, cirkana uu biyihiisa istaajiyo. kadib doontii nabi nuux alayhi salaam waxay ku nagaatay buurta hadda loo yaqaan Juudi oo u dhaxaysa jasiiradda Carabta iyo Turkiga. kadib meeshaas waxa ka bilowday xalqada labaad ee dadka hadda adduunyada joogo waxay ka soo farcameen 3 uu dhalay nabi nuux alayhi salaam ee Ham, Sam iyo Yafith.